qaar ka mid ah dhalinyarta aqoon-yahanka ee ka soo jeeda degmada Garadag ee gobolka Sanaag ayaa deeq lacageed ku wareejiyay oo dhan $1,160 Axmed Maxamed Ibrahim oo muddo 7 sano ah xanuun u jiifay degmada Garadag ee galbeedka gobolka Sanaag. Axmed ayaa sidoo kale xaaladiisa caafimaad waxba lagaga qaban karin wadanka gudihiisa, waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan. walaalkeen Axmed Maxamed Ibrahim runtii dhalinyartayadan iyo dhalinyaradii kharashka ka qayb qaadatay Axmed ee sida wanaagsan dhalinyarta reer Garadag ee sida wanaagsan ee mutadawacnimada leh u soo bixiyay lacagta. runtii waxaanu u leenahay saakallah ilaahay ha inaga abaal mariyo. Axmed waa walaalkiin maanta uu garanayaa inta yar ee muddada yar kooban ee aad ku garab istaagteen. dhalinyarta waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba dhalinyarta reer Garadag ee Axmed wuxuu soo ururiyay iyo kuwaan waxba u soo ururinba ee iyaguna niyadda kala socday intaba waxaan leeyahay ilaahay qulubtiina iyo qulubteenaba ha isku soo jeediyo. yaro markaa tabarucaada oo markaa hawshiisa ka dhinayd oo lacagtaas oo waliba hore looga qaaday oo dhakhtar Turkiga ah waliba kaga xanibneed lacagtaas $1,000 ahayd in markaa lacagta Turkiga kaga xaniban inuu ka gudbo $1,000 dhalinyaradu markaa u soo ururiso. ما شاء الله dhalinyarada reer Garadag dhalinyaro iscaawin kara dhalinyarada socod laakiin dhalinyaro aqoon-yahan oo u dhashay deegaanka oo isugu jira dumar iyo hablo iyo wiilalba. runtii dhalinyaradaasi waxay mudan yihiin amaan ilaahay ha ka jasaaysiyo wax khayr qabanaha ugu bedelo meelihii ay ka soo saareen qarashaadka ay Axmed ugu tabarucaya. waa dareemi kartaan qofku markuu xanuunsanayo iyo markuu maxaan ku raadayay iyo marka kale isku mid maaha. caafimaadku wax qaaliya qofku hadduu caafimaad qabo wax kastana wuu qabsadaa, laakiin hadduu qofku caafimaad haysan waxyaabo badan ma qabsan karayo. marka lacagta anagana soo gaadhay waxay ahayd uu naga codsaday Axmed $1,000. marka anaguna gacanta maanta waxaan ku haynaa $1,160. marka waxay ka saacidaysaa hawlihii kale. arrin adduunba maanta Axmed uga baahan yahay yar ahaan wuxuu ku caawin karaa ku caawinay caawadana noqon mayso tii koowaad waan sii wadi doonaa markastoo caawin looga baahdo. ku soo boqonnay gurigiisa oo Axmed Maxamed Ibrahim Shafool ninkaas oo muddo 7 sano ah xanuun dhabarka ka haleelay u jiifay oo dalka gudihiisa xawla qaban waayay. waxaanu maanta haddaan nahay dhalinta reer Garadag hablo iyo wiilalba anagoo isku jirna aan ku wareejinay lacag ka dhinayd $1,000 ah. wixii aan ururin karanay ama Axmed naga soo codsaday waxa $1,000 galabtan ku wareejinay. wixii aad ku dari kartaan kulley qof xanuunsanaya oo dhakhtar sheeyo daweed ku socda lama oran karo $1,000 buu baahan yahay. wixii aad ku dari karaysaan ee adduuna waad ugu daraysaan. wixii arina waxa ugu badan aan ku codsanana ifka wax la isugu yahay aakhiraan cidina waxay sumaha. bismillaahir rahmaanir rahiim. dhalinyartan maanta soo boqotay oo baasantihiin ee guddoonsiisa qarasha alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay ma hadle. marka labaad waxaan codsanayaa in leega saacido sidii fiisaha ku heli lahaa. fiisaas oo 2 jeer la diiday tiraba bishii koosnaad sanadkii hore waa la diiday. Abdi Salaad Jaamac, telefishinka Sahan, Garadag.